haweenku markii la soo qaxay kuwii nolosha gacanta ku qabtay weey suuqyada ha fariisteen wixii wax yaqaanay iskoolada ha dhigeen wixii kale ta enjoy ha sameeyeen yacni dumarku waxay ahaayeen dhinac walba nolosha basic ah oo wadanka lagu degan yahay kuwii salka u dhigay ahaayeen gabdhaha sida islaamku uu runtii u karaameeyay oo mansila fiican u dhigay kol aanu intaan wax akhrinayay ama adyaanta kale ama caalamka soo maray wali maana arag islaamku si fiican buu runtii dumarka u dhigay dhaqaalaha wadanka boqolkiiba madha konton iyo 6 ka badanba wax gacanta ku xayay activity-ga wada gabdhaha ugu badan muhiimadda muwaadin walba oo u leeyahay inuu xuquuqda dalkiisa helo bay gabdhuhuna u leeyihiin inta uu dastuurku u ogolaanayo ragga baa gabdhahana loo ogol yahay golaha deegaanka waxaan ogsoonahay in ay tahay mabdaqada ugu hooseysa oo laga soo galo dawladnimada marka in gabdhuhu ay ka mid noqdaan miiska ay qayb ka ahdaan miiska go'aamada lagu gaarayo go'aamada noocaas oo kale masiiriga lagu gaarayo in qayb ka yihiin waa arrin aad iyo aad muhiim u ah nuqsaanka loo tirinayo golayaasha deegaanka inay ka bixi waayaan mas'uuliyadooda haweenku kuma jirin oo rag baa meelaha fariisanay marka haddii haween yimaadaan waana u badan tahay in nuqsaanka la waayo waana waxa maanta loo baahan yahay dawladaha hoose markii ay tagaan waa inay ka qayb galaan oo kaalintooda ka qaataan oo gabdhaha haddii qaarkood xataa ay yiraahdaan war hana la doorto dawladda hoose wax dhibaato waa loo dooran karaa waa qaban karaa runtii waxay la mid sida tacliinta oo kale uga shaqeeyaan baruurta uga shaqeeyaan qayb weyn bay ka qaadan iyagaaba naga og haatan wuxuu ku jiraa taladii iyo tabartii waxa ku jira codkooda iyo afkooda waxaan u malaynayaa hadda oday la eedayaa ma jiro oo lagu eedeynaya inuu saynkii u diiday saxiixii u diiday waxa laga fili karaa haday gabdhuhu golaha deegaanka ka mid noqdaan in baahidii badnayd oo inta badan taagnayd isbedel ku imanayo waxyaalaha asaasiga nolosha u ah caafimaadkii daryeelkii hooyada iyo dhallaanka ragow ogaada haddaan la doorataan wax idinka xumaan mayaane hadda maanta waxaa la taagan yahay maalintii aynu guran lahayn miraha ay leedahay waxtarku gabadha